بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu maanta ka hadlaynaa dhowr qodob. qodobka koowaad waxaan ka hadlaynaa abaarta waddanka ka jirta. abaarta waddanka ka jirta maanta waxaa jirta abaar aad iyo aad u weyn oo Ilaahay haynaga soo saaro hayna siiyo raxmadii khayrka qabtee dalka dhammaantii laga sameeyay. waxaan filayaa xukuumaddii maanta u xil saarnayd ee ummadan iyo dalkan iyo dadkan ay doorteen inay maanta kaga mashquulshay waddanka abaarta iyo sixir bararka ka taagan inay kaga mashquulshay iska celin iyo iska caabin xisbiyo qaran iyo doorasho inay kaga mashquulshay oo wixii loo doortay baa ilowday ayaa maanta filaya. maanta waddanku wadogtiino waxa jira roob la'aan aad iyo aad oo waddanku uu ka sameeyay ba jirta hadaa loo baxo oo baxdan bari ama galbeed meesha doontaba loo baxee waxaad arkaysaa dadkii xoolihii ka dhamaadeen beerihii yaraaye ay qodan jireen oo ku noolaayeen oo roobkii markii ay waayeen ay iyo xoolihii ay magaalooyinka ay soo galeen magaalooyinkiina wax alla waxay ku hayaan aan jirnaan ahayn culays iyo istulfuul ay magaaladii yimaadeen mooyaane aanay wax alla waxay ku hayaan aanay jirin. wadageedin qodbad sanadeedkii madaxweynaha waxa ku jirtay inaan waddanka sixir bararba aanu ka jirin. wadageedin shalay tole wajaale babada loo laabay. wadogtiin halka sixir bararka maanta uu marayo sarifka lacagaha isku bedelka Soomaaliland shilling iyo dollarka ayuu deemaa madaxweynuhu inuu intii ku xakameeyo ayuu mala kala garawaya sixir bararka wadogtiin markuu marayo maanta wax kasta wuxuu noqday taamisto waxa kale oo jirood ogtiin maanta inuu madaxweynaha hadii roobku naga yar habsaamo wala qayliya oo waxa la yiraahdaa abaar baa nagu dhacday maanta hadda waxaan leeyahay maadaama xukuumadda ay ka gaabisay dadkii iyo dalkii ummadan loo doortay waxaan xisbiyada qaranka kula talinaya bal inay sameeyaan guddi ay u soo xil saaraan abaartan iyo sixir bararka waddanka ka jiro kala hadii xukuumadda loo doortay ay ka gaabisay adduunka United Nationka iyo cid kasta oo hawsha ku shaqeeya bal ummadan ugu qayliyaan oo yiraahdaan bal abaartaas maanta taagan bal wixii ummadda wax u tari karaba loogu qayliyo waayo de xukuumaddii loo xil saaray ka gaabisay xisbiyada qaranka de waxa saaran iyo laftigu waxa saaran xil baa saaran hadii xukuumaddii xilkeedii gudan weeyday inagu maanta aynu ummadda u laxno oo guddiga loo xil saaray bari iyo galbeedba dadkii waa khalaas bay marayaan noloshii way maraysaa noloshii iyo maraysaa in hawsha laga hawlgalayaan u baahnayn. qodobka labaad waxa weeye aynu tire sanad guuridii xisbi labaatanaad bay ka soo wareegtay ay qabsadeen kulmiye anigu sanad guuridii ma fahmayni maalintii malaha caayda iyo xisbiyada sidoo caaylahayn ayaan anigu u fahmay nin walba dabada isku maray wuxuu hayay kan keer ayuu ka bilaabay nin baarka wada sitay computer oo hawaa wuxuu ku qodbiyay Cabdiraxmaan Abel dhageysta maanta haddaynu soo saarno madaxweynaha dalka iyo wixii oran jiray iyo wuxuu ku gudbin jiray haddaynu soo saarno waynu ku qariyay bas ilaahay bay loo kiri madaxweyne Muuse wuxuu oran jiray markuu mucaaridka ahaa iyo wuxuu ku hadli jiray haddaynu keenno waxaad ka hadlaysaa wuxuu noqonayaa waxaan waxba ahayn ummadda waxa oran war goormo malaawii yuusiin goormo way ficiiba waxaan leeyahay computer iyo hadii la soo qaadanayo muxuu ahaa wax la iska duubay halkan 700 waxaan ku hayaa madaxweynuhu markuu gudoomiye xisbiga hayo mar mucaarid ahaa oo ku hadlay ma keeni karayo ku hadalkeeda iyo maanta inaan ilaaba sidoo yiri aniga ila qurux badnaynba ninka xinif leeyana isaga waxay noo dhameeyay in muxuu ahaa boqorkiisa ayay noo sheegay maalinta baraka yimid boqorkay noo sheegay waxba kale kaga sii tiigalayeen dhinaca Soomaaliya waxay noqotay kelmaddan maxaafsiga ee Soomaaliya xisbiyada Soomaaliya mar walba laga hadlayo Soomaaliya xisbi macaarib maxay Soomaaliya doonayeen war muusan nigeyn karin Soomaaliya ku ka dambeeyay nigeyn karin cid kale nigeyn karin mujtamaca cid Soomaaliya geyn karta iyo cid Soomaaliya ka hadli karta haba yaraatee ma jirto ninka siyaasigana wuxuu tala doonaya waddanka tala ka doonaya wuxuu mar walba ku shaqeeyaa waa fikirka dalkan iyo dalkan uu talinayo
ما ها فكر وشيودي سكلا صبح ما ها فكر يسوي وكان يمدن وفكر كأمدن يدد كان مسيح ودستور كقرن كأمدن يال ما ها ينسدي عروية يا مرة بس صوماليا ورئيس صوماليا ونكرتي عيد صوماليا دوني كرتامي جرتي كلمة المحافظ مالها نيجا صوماليا كبداية ومدة بينه وشيء إلى أن حريص عمر اعتقال بوحوري بريجي دورشة 1960 يا أنا مكان دي سي بس هاكا كشرنا أقل كي دي سي يا واحد dad baa markaa soo bareynaya iyo waxay soo qaateen buur faashashiye buur waxa soo istaageen buur aqalkeena ku shirna dadkaas waxa la buur marka shirka laga soo dareero hadaan maqli weyno Soomaali weyn dhammaan waxa ka soo dareeray meeshii kurkeena ku geynaa wiil buur fikriga misanayeen baa hayn maalinta ninka siyaasiga wuxuu ugu talinayay maalinta fikirka aaminsanayeen maanta fikirka iyo dastuurka qarankan ayaa loogu talinayay cid Soomaaliya cid waxaan umada aan waxba ka jirin loo sheegayo cid kula talin kartay cid oran karta haba yaraatay ma jirto umada hal laga daayo kelmadan xaafsiga noqotay mar walba lagu soo celiyo umada hal laga daayanay maanta waxaad ogeen boohole waanta waxa jiray ciidan ugu soo tababaray billah oo aan ka soo day dalkan iyo dadkii loo doortayna waxay ku mashquulaan xisbiye qaran oo xisbiye qaran oo ummadana dooratay oo 42% ummadana codsiisay in dalkan cadawga ka difaacaan dadkii loo doortayna kuwaas ku mashquulanay xoogii iyo quwadii Soomaaliya lahayd kuwaas saaraya wariilimo doorane waxay loo doortay kuwa maanta Soomaaliland cadawga kuwa ee arkaysan wasiirigii Puntland baa joogay maanta buuxoodle oo ciidamada soo tababaray ugu furiyay shir وكل اللي دورتي أنا اللي دورتي وقوة ماها حسب قرن ماها أودي سومالا والهيد إن ثارتان حسب قرن ماها كل اللي دورتي فهمه وعلى السومالي يعني ما أنت صوبوه اللي كنت هو بري عيد مرة أركع وين دويش وحلا اللي يجينا كلا قلتي يويل كي ومدن اللي هانترتي اللي دورتي والمركز مرة يعني عرموه نوع علاقة إلهون حريستي شيخ يوسف شيخ مدر محوها عبد الوراري من بعد شري ومدنا يكون بحضر ووايلة وقلتيا وشري ومدنا يكون بحجرتي ما أنت سوداني ليني بدك يني وحجرتك ها ورد لما أنا حسبين كده وفيل مو ولا إحنا بلين حسب كل شعب ليسن بالغدار هي كل شعب ليسن قلت لي أنا وحيل دورتي ما أنتوا جيب بورت مقدر ما يبغى والله وحنا دارين سوماليا أنت صحيح أنت هنا ما أنت كم هذا شو قلتي روح إنه ده هناي تجيب لي ما بدك قلتي إني سلادين تي بدك وحجرتك هاي ما أنت النوع عن مريسو كساري شري وركالة يقدر درهم شيء يشري وركوي ما أنت ما ينقدر مارين والله ما يصدق إني أفرم ده هاي ولا هاي ركبوا ينقدر ودad buu inaga dhigay war intii aynu Soomaaliya dheerayn ee aynu ku kala baxaynay nimankaas ahay kuwii hadii yahay inaga qaadan maanta waxaynu u baahanahay war kuwa runta inoo kala sheega oo aan haban oo qabiil noqon oo cid noqon walaal dhammaantood salaadiintii iyo guurtidii wixii dhammaan waxay noqon qabiil bin noqon oo ku kala faylay dadka ku kala faylay ruuxana wax xisbiye qaran iyagu wax xisbiye qaran cid kasta iyaga way ku jiraan laakiin waxaynu u baahanahay dadkii ka talin lahaa dhibaatooyinka iyo maanta waddanku halka marayo iyo cidda qaldan runta u sheegi lahayd ayaynu maanta u baahanahay wadogtiin doorashooyinka maanta taagan doorashooyinka xisbiyada qaranku waxay ku doodayaan wadogtiin madaxweynaha qaranka maanta isna wuxuu leeyahay wadogtiin dastuurkeena iyo xeerarkeena dhiganayna waxa ay maanta leeyihiin wadogtiin warkeena qaldan iyo ka haddii maanta madaxweyne Muuse Dano doorashada inoo qabo doorashada si sameyn doornaysan haddii maanta nadaamno 6 bilood ka gooyo doorasho maanta inoo qabo saxda xisbiga qaranka maanta waxa leeyahay waa sida 10kii sano la doortay leeyahay barka soo gooyo oo haddaan ku wax cusub keenina ku cusub baa doorashada gali doona wadogtiin sharcigeena iyo xeerkeena wuxuu ka qabo kuwii runta u kala sheegi lahayd inaga ahayd waxay ahayd salaadiintii guurtidii wax garadkii ahayd maanta waxa filaya inay dadkiina noqdeen dad ku kala faylay kuwa oo inaba gees raacay warlooma baahnay dad dhaxa oo qarankan iyo jamhuuriyadda Soomaaliya la xajala ka qabayhayn oo layaasheenii hore dadkii la xajala ka qabay ee guurtii haday noqotay haday salaadiin noqotay haday wax garab noqoto runta kala sheegay ayaynu u baahanay madaxweyne Siidaaye rag baas ku yiri daraatole halka fariisaan naga maanta garanaysaas may kuwi dhammaantii waxay noqonay kuwa ku kala fayla guurtidii iyada ma garanayo meel alla meel martay loo doortay markay xaalado wadda ku noocan taagay
qabyaaladii meel xun bay namaraysaa meel xun bay qabyaaladii ina maraysaa waxaana keenayna waa la garanayaa sababay arrinkaa waa la garanaya inay meel xun ina marto xisbiyada ku soo ololeeyey ee ku soo fuulay kursiga doorashada waa la ogayay war maanta haddaynu qaran aynu dhaafno qabyaaladda aynu dhaafno oo xisbiyadu waa xisbiye qarane aynu dhaafno qabyaaladan min bari min galbeed xisbiga aragti ayaa loo baahan yahay looma baahna qabyaalad looma baahna haddii kursiga shalay tolo lagu fuulay war aynu dhaafno maanta oo kursiga hadday fuulay kulmiye maanta aynu dhaafno yaanu halkan soo fariisinin dad reernimo iyo dadnimo ku hadleen maanta isaga cishadii dhaweeyna waxaan moodayay inuu xisbiga mucaaradka ayaan moodayay waan yaabay waxaan soo kulmiye maana xisbi qaran noqon soo kii waddankan isagoo ka taliyay waddanka qabsaday sidii wuxuu hadlay berigii uu ahaa mucaaradka uu lahaa kana sidan iyo madaxweynaha waddanka ku fadhiya kana iyo war maanta waxa tihiin xisbigii talada hayay ee qarankan maanta hayay tiina hogaaminayay maanta iniga tanaasulkeena iga baahayay loo baahnaa soo fadhiisataan aad cay xisbiyo iyo cay shakhsiyaad halkan la soo fadhiistaan loo baahnaa maanta waxay laga baahan yahay aragti iyo waddankan inaad u talisaan oo halkuu marayo maanta wad ogtihiin inaad ka saartaan bay laga baahan kulmiyood in lagama baahna qabyaalad iyo intaad halka soo fadhiistaan xisbiyaad caydan lagama baahno waxaan u sheegayaa dadka dadweynaha jamhuuriyadda somaliland isha dhaweytole waxaa gudoomiyaha xisbiga khudbadeeyey wuxuu ku hadlay uu lahaa war haddaynu maanta aynu ku soo celino sharciga hadday sharciga ka tallaabsato xukuumaddu aynu sharciga ku soo celino oo aynu siirida waa fuufno oo haddii xabadina lagu ridayo iyo haddii wax kasta lagu samaynayo iyo haddiina la xidhiyo aynu diyaar noqon waa la wanjalay si kalaa u wanjalay kulmiye diyaar maytiin xabada in lagu rido diyaar maytiin inaan wax aan jirin joogin oo laga hadlayn war xisbiyada qaranku iyagaa nabadda jecel iyagaa dalkan jecel iyagaa uga lexe jeclo badan cidda maanta talada haysa iyagaa uga lexe jeclo badan cid xabad ridaysa iyo cid xabad lagu ridayo iyo cid xabad u diyaaray toona ma jirto iyagaa qarankan maanta uga lexe jeclo badan yaan dadkana waxaa leeyahy wajalaada iyo waxaan jirin iyo waxaan loo jeedin yaanina lagu jahwareerin ee arka wadada saxda iyo cidda qaldan